هذه الدوما سنتي دمان تيمبا مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي ويلكو حقينك جمهورية الصومالي لان مدن عبد الرحمن إسماعيل عبد الله وكانك حسبك كلمية وقوم مدن هاي مشاهد محمد كاهن أحمد وزير كاهمها قدها دمان قدها فلنتا يحبناها قراء دحي دمان قدها فلنتا يحبناها قراء دحي مدنياشا قولها وكيلة حسبك كلمية مدن تيمر تشرف تقييمها بدن أنترد الهين مدشن يسقطني دمان تبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته reer kulmiye dhammaan meel ay joogaanba dunida dacaladeeda iyo daafaheeda waxay sharaf weynayaan inaan halkan kaga bogaadiyo sanad guuradii 20aad ee xisbigoodu uu baarka ka jaray waxaan leeyahay hambaliyo xisbiga kulmiye taariikhdiisii madaxweynaha iyo ragga halkan ka hadlay si fiican bay uga hadleen وحسبك وقول نصيب كبدن ما أنت حسبية سوماليلاند وحكم يدي حسبية أفريقيا كوا ما أنت دافع عمر جود اللباتن قارد أفريقيا شن لحت الضبح حسبي وحلباتن سنة وسوق قاري كذا وحاول قيمة بدن حسبية أفريقيا حسبك ANC أو أفريقيا سجاشن كي ثلاث اللوريجي إلى ما أنتنا سيدي اللباتن صنو ثلاث ذلك عن تكوي kulmiye waxaan rajaynayaa inuu halka ka sii socdo guul waaweyn xaqiijiyo halkan waxa laga waramay xisbiga kulmiye iyo wuxuu gaar ka leeyahay madaxweynuhu waa ka waramay rag badanna way ka warameen waxaan isleeyahay 7-8 qodob ayuu xisbiga kulmiye gooni leeyahay oo kaga duwan yahay xisbiyada kale ومركو ورثة حزبك كلمية وحزبك أقول بلارن تاجر يالهان أي كله من برشة الصومالي لان بين على مرخاتي سوفوجيا ومرلباتك وحزبك كلية المدلبات سنة الله بمدحولات كقول يستيد دور شديد من احتويات الدلكة مرصدحات كويه وحزبك أي لبه الجامية لبه مدحوينة كصوب بحين أو اللبه قدومية إسقى كلا دنبيه وسيلانية موسى أو له تاريخ ما أنت نافسيسن أو تقتدي شلينا أي حكوليه حسبيا كلا رجعه الجامية وحي تاريخ ذو كوبان تاي تماثل ما أنت أوكيليا تاريخ ذي تقتدي وحكم على هاي حزبك كلمية وحزب ويرجع ما بدل له وحزب قار بدل وحزبك أقول لك يدمع بدل وحزبك أقول خلافات كبدل هذا هو حزبك أقول حريفسا إنه حلية خلافات كجريسة يلون لك دحيسة حزبك كلمية وحزبك مذكرني وأنتو كقبوا سديتن عد كجتجي تلادل أي غير قلبيت كي ديمقراطية بلاوي ليابين وحكوسو مال مري قرن كان حلقي مدحوين الداهر ريالك كاهن ودلك هجاميني ما هين قرى دلقات كمدحوين الداهر ريالك كليا كمسو مال مرين وحكوسو مال مري دلقات كا ترالها حسبك كلميه هجاميا شيسي هالدوركيسي او قرنيي نبض ايو علاده او خساره يقانها حسبك كلميه وحسبك كليا مدة 20 سنة أفضل شيء وينه يلحش أو قراد حاقبتي ما تشرح حسب لمذي وحلا كلمية وكاس كل يوم حكم ده أساسيا شيء وحن أوران كرا وحن هنكي لبات يا أحمد سيران يكون معنا تاريخ البنك شيء جماعي هو تاريخ أحمد سيران يحل وكسر نقضي عرق إنجليز كأو دنتين مدحوينه محمد حاج إبراهيم عقال إلهي هون حريسته أيو قريجي سقدن نوجو سمية أنا جاي يوني كليادو حسن أحمد دعالة حسن معلم
oo golaha wakiilada labadayduba aanu ka mid nahay wuxuu yidhi nimayu damac baan leeyahay dalkiina hoggaankiisii waa kan isbedelay hoggaamiyihiina waa ka dhintay kulliba dimuqraadiyaddii baa la bilaabayaa waxaan idinka doonayaa ururadiina diiwaangelintoodii waa la xidhay xilligii cigaal noolaa baa la xidhay laba urur oo yaryar ayaa rag iila yimaadeen inaynu isku darro oo mid ka mida magacooda aynu qaadano oo kaa diiwaan gashan waa rag inoo doonoo dee ilay nin hoggaamiyo murashaxo wax doonayaa jifidiisa kama maarmee nimankii xaafaddii aynu ahayn dee raggi kala doona idinkuna ila shaqeeya labada arrimood buu noo soo jeeday inaan ula shaqayno iyo inaan ragu doonno halkaana Saleebaan baa fadhiyo oo qoor weyn badan haysta xukuumadda udubna rag badan baa jooga aniguna cadaysi baan ahay keligeena ragga uma tigi karo waxaan ku nina madaxweyne garbaad u leedahay wuxuu kala ku daray war xasanow adigana udub baan kugu waraystay maxamuudna nin mucaarado meelaha uun dee haatan wareegaya waxaan ku nina madaxweyne waa kula shaqaynaynaa guddoomiye axmedow waa kula shaqaynaynaa laakiin talaanu ku siinaynaa war waxba wax toobal caaro la isugu keen daray haynagu kalifine midaynu leenahay oo magaciisa xulanno oo rag oo jabadaad ragga u oodo oo aan birina lagugu lib sheegan oo lagu odhan waa haraggayagii kaasaynu samaynaynaa sidee u suuroobaysaa buu yidhi waa ruuxan annaga awalba samayno golahan wakiilada sharciyadda sameeya golahaasaanu geynaynaa mooshin in dib loo furo ururadii waa ka soo baxnay wuxuu waa aragti wanaagsane taa ku soo shaqeeya casarkii baanu kala tagnay halkaa waxaanu tagnay gargaar ninka la yidhaha cabdilqaadir jirde ismaaciil oo ah guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada oo madax noo ah baanu ka helay waxaanu nidhi warniyow dee dalku khilaaf siyaasiga ka jiray madaxweynihina wuu dhintay waxaa loo baahan yahay political reconciliation dib u heshiisiin siyaasiya si loo helo ururadii aynu wakhtiga lagu xidhay ee asadna diidda inay isdiiwaan geliso rag cusubina damac la iman karo aan furo arrintaa nagala shaqee wuxuu nagu yidhi waa kaa noole war anigu waxba ka garan maayo waxaana mashruucaana idinla wadi maayo hal shardi oo keliya maanta dalkaa ninun baan ku ogaay wax hoggaamin karee ninka axmed siiraanya hadduu urur furanayo waan kala shaqaynayaa annaguna waanu ka qarinay waayo dee maanu doonayn warku suuqa inuu galo arrintii baanu subaxii keennay annagoo 15 mudana ah wuxuu akhriyey qayba wuu maqnaayo isagaa hoggaaminayay warqaddii guddoomiyaha shirguddoonka golaha wakiiladu markuu kula shaqaynayo xeerarka qaar badan buu kaa boodsiin karaa qolada baarlamankana waanu sheegayaaye waa kaad la isticmaalo markaan lagula doonayn in lagula shaqeeyo waxaa la odhanayaa garyaqaanku ha soo eego waxaa lagu odhanayaa xeerku wuxuu dhigayaa 48 saacadood markuu garyaqaanku ka soo jawaabo in la dhigo wuxuu odhanayaa dood la furo waa 3 dariiq saddexdaaba intuu naga boodsay buu waryaalo waa nimanka dalku dib u heshiisiin u baahan yahay inaynu isu soo jiidnee waxaani garyaqaanna u baahnay cod baan qaaday yaa ogol in ururadii 2 bilood lagu kordhiyo dhammaan waanu codayn halkaasaa kulmiye aanu ku samayn waxaan leeyahay xisbigaa kulmiye ee aan maalinta ahaa qoori fagaaray ku waroo sheegto kootaa maalmo adag oo badan bal meelo adag ka ciidamiyey guushana ninka keligii sheegtaa nin raga maaha guulaan keligay lahaana ma jiro laakiin meelo adag baan maalmo badan ka ciidamiyey ma garoocan mana xero kalena uma gudin ilaa maantana laygama maqal kulmiyaan ka baxay anugu kulmiyi baan ahay waan idiin sheegayaa waa dhab aniga iyo xisbiga khilaaf baana soo kala dhex galay
aniguna waxbaan tawday waana cadhooday war aniguna ma dhalin la'ayn xisbiguna ma dhalin la'ayn anna wax geystay anna wax lay geysay waxaan leeyahay bini aadankuna wuu cadhoodaa maan rag waa mudacyaafkood raggu waa isqabtaa siyaasaddu qurux iyo qosol joogtaa ma leh ee waxay leedahay qaxar iyo qabyo joogtaa siyaasadda waa la isku qoonsadaa waa la isqabtaa waa la isqalacaa meesha qoodhu ku badantay intaasba waa xeerarkeeda laakiin waa laga wada xaalaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi waanu isu nimi waa wada hadalay aniguna waxaan soo gal anaa isu soo ladqabeeyey dabcan raggii soo ladqabeeyeyna waa jireen erga culus soo kulmiyey igama daba iman laakiin anaa isu soo ladqabeeyey waxaan garwaaqsaday xeradaydaa iyo xisbigaa waxay dhaamaa inaanu jirin baan garwaaqsaday waxaan garwaaqsaday haddaan saaka xero cusub tago inaan u kororsan doono hebel magicii inantaana magaceed xagee ka yimaadeen ma awdal mise sool waxaan leeyahay xerada kulmiye ku qaloon maayo qoodha joogtanoo qof qof baanu aqaanaa waxaan leeyahay geela xerada kulmiye ku jirana hashaa magaceed odhan maayo war miyaanay runtay ahayn waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan anigu taasaan garwaaqsaday isna wuxuu garwaaqsaday waa oday qaran xisbigana waa u oday fule kaa guul jecel isagaa maanta iga lib jecel inuu raggiisii urursado iyo inuu isu keeno iyo inuu haddii midma isu jiido waa mas-uuliyad iyo xil saaran si wanaagsan baan u wada hadal aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa kama arag ciilqab iyo cadho labada anaba naq badnaa anigaaba naq badnaa isaguna waabuu ii garow badnaa markaanu sheekaysanaynay waxaan hoostaan keega waxaan waryaadhe war meesha dee madaxnimada dushana waa lagu bartaa berigii waataynu odhan jirnay madaxweyne waana dul yar yahay waana deeq yar yahay war ninku intii hore ka dul badan haddii run baan idiin sheegayaa war ninku intii hore dee ka dul taana waayo wuxuu igu yidhi war aniga waxba imaad odhane kursiganaad ku socotay ninkow maantana adaa dhowris mudan buu igu yidhi aniga waxba dhowris ma mudni yaa waraabaha gaboobay ee badka isdhigay baan ahay ninka tudhaalaha u baahani waa adiga aad baan ugu bogaadinayaa raggii kale ee xisbiga waaweynaan oo uu u horeeyo in adeerkay maxamed kaahin axmed na waan isbeer xaaran waarnimayow maantana aniguna nin ciil qabo cadhaysan ma ihi kulmiyana dee ma cadhaysna waxaa jira laba ninoo walaalaahoo reerka iyaga ahoo qaasim qodax iyo loodhan jiray axmed qodax walaalay ahaayeen qaasim daas yar buu buca ku haystay axmedna caaqil buu ahaa caaqil nin fariida buu ahaa waa soo gaadhay dabshaanna aho qayala dabeedna marba daaska wuu u yimaadaa dee ninkan wax ma haye qaasim biilka reerku ka qaabilsan yahay wuxuu ku soo daray qoomaha reerkana marba wuxuu hebel baa xidhan qoon ka soo bixi haddana wuxuu ku soo diray dee qaadkii iyo sigaarkiisii dabeedna qaasim wuxuu arkay inaanu qaadi karin daasku waxaa soo xila wuu yeedhi wuxuu war walaal muxuu ahaa axmedow daaskani intan ma qaadi karo masaariifta qoyskaagu maan ka adkaanayaa axmed baa yidhi waryaa waa ninka markuu dee arkay siduu u fakerayo halku dhig caan noqday oo weyn buu yidhi waa kaan ku soo socdo wuxuu yidhi war qaasinow intaad xisaabinayso intaad adigu wax isiisay ama waxi tartay anna aan xisaabinayo intaan qaday weligeen heshiin mayno waxaan leeyahay madaxweynaha waa isu wacan baanu isu beer xaadhanee war ragga madaxweynaha ku xeeran ee xilalka hayo waxaan leeyahay intaa xisaabinaysaan intaan xumo sameeyey aniguna aan xisaabinayo inta aan hawl iyo halgan adag geliyey dhismaha dowladdan aad haaneedkeeda haysataan ee hadhuubkeediina heensateen wadee heshiin mayno isu soo hiloobi mayno
waxaan leeyahay war wixii dhacay aan xalay dhalay ka noqonno is xasuustaa isma xabaale baa la yidhi xafiiltankii xanaftii xurguftii waxaasoo dhan aan xalay dhalay ka noqonno saaxiibadu waa saddex saaxiibka guga iyo ka jiilaalka iyo ka gugiyo jiilaalka waxa ugu qiimaha badan ninka jiilaalkana ku raaca gugana kula jooga war waxaan leeyahay reer kulmiyow waxaanay saaxiibkiinnii jiilaalka aad jeclaydeen ee idin jeeni qaaraa war nin hadduu seexdo soo tooso waysagii waxaanay maxamuudkii shalay idiin fadhiyey biyo culusta ee darka ceelka wadaanta dalluunta dheer ka darayey baana haddaan hal maalin kulmiye gacan bidixeeyey war miyaanan lahayn maalmo badan dharaaro badan oo aan kulmiye ka ilaaliyey dhegxumo iyo dhicis iyo dhimasho siyaasadeed waxaan leeyahay on kaga baxayaa halku dhig baa wuxuu yahay afka qalaada libsheegashayga ma aha waase kaftan halku dhiggaas wuxuu yahay the hand that rises you when you stumble is better than a thousand hands that shakes you when you arrive. عربي قالوا كجبتها اليد التي تنهضك عند تعثرك خير من 1000 يد تصافحك عند الوصول. قعنت كوينتسا أديكو ترنترونا يا أما تباليسني وحي كفي عنتها يكون جمعود أو كوجعان قاعدة مرة قوليستي. تايتا سان كلي وحن لا يحي محينو بهنا مدن مدحويني يا مدحونا كحجين مدن يالي مروي كل ما يوحو باهن يحي لما مدحيلات بو قوليستي ما أنت نترتنا بدلو أدك بين السوقية الردي دورشدي مدحتوية له يينا نسمع عاشتين سياسة دواي كرهي بنت يسمع عاشتين siyaasadda dhinacaagaa ragga aysaysaan laga eegaa haddii quruur ina galo iyo qab oo aynu nihano wallaahi aynu isla baxno waynu jabaynaa waynaynu si wacan isu qiimaynaa maxaa inoo wanaagsan maxaa inaga xun maxaynu fursadahaynaa maxaa caqabada inala derisay waxaan leeyahay mudane madaxweyne taariikhdaadu maanta waa xisbigan iyo qarankan waxaad kaga tagto mar waxaad tahay hogaamiyey qaranka marna waxaad tahay hogaamiyey xisbiga labadaa xil baad isku haysaa labadaba inaad ka shaqaysaa lagaa doonaya midba gaarkiisa uga shaqayso haddii aanu wadani iyo cid haddaanu kulmiyanahay isla caddaysano caddaysiga annagaa ku filan adigu kuma jirti adigu annagaa ku filan dee nama soo dhaafi karaan nama soo dhaafi karaan waxa weeye adigu odayayntaad leedahay weliba marxaladan adag waxaan leeyahay saaxiibkay muuse guushaan la jecelahay ka dhig maanta mid dhaanta shalaydii aynu soo dhaafnay waxaan leeyahay madaxweyne muuse dhimo adiga oo leh dheg fiican iyo aragti ifka dhaafsiisan oo aakhira ah waxaan leeyahay dhis xisbiga madaxweyne xisbigu ma dhiman laakiin madaxweyne ka bi'i dhutiska iyo dhaawaca kulmiye wuxuu u baahan yahay dhoobaqaad iyo dhiig cusub buu madaxweyne u baahan yahay dhoobaqaad iyo dhiig cusub buu u baahan yahay waxaa lagaa doonayaa inaad ku dhiirato waxaa lagaa doonayaa xisbigan in lagaa dhaxlo madaxweyne oo sidii xeerkii axmed siilaanyo dhigay aad ka tagto oo madaxweyne kulmiye mustaqbalka ku bedelo oo xumo oo kaa dambeeyo xisbigani oo taariikhdaada ay gasho oo lagu duceeyo inaan hoos lagu eegin baa la doonayaa waxaa la doonayaa adigoo keligaaya inaanad madaarka sida daahir yaale ka soo degin ayaa la doonayaa aad baad u mahadsan tahay reer kulmiyo waan u wada ducaynayaa dhammaantiinba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu